hooyo Sahra Maxamed Cabdilaahi waxay ka mid tahay dadka ku nool magaalada Burco waxay muddo 14 sanadood la taag daran tahay xanuun ka haleelay adinka midig sida dhaqaatiirtu ay sheegeen ay yiraahdeen dalka dibadiisa ayaa wax laga qabanayaa bal waxaan wax ka weydiin doonaa qaabka ay dhaqaatiirtu kula taliyeen iyo sidoo kale baaqa ay bulshada muslimiinta u dirayso si loo soo caawiyo loona helo dhakhtar dibadeed walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa adinkaas oo xanuunayay 14 sanadood oo dhaqaatiirtiina waxbay ka qaban waayeen ilaahay dibadda mooyaane dalka waxba lagama qaban karo walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan xanuunka markaad bacday waxay ku sheegeen waxay yiraahdeen dhiigba kama qaadan isaga jirka marka dhiigga laga qaado ama se guudkaba ay ka arkaan waxay yiraahdeen waxa weeyaan neerfo xidido kala xidhmay oo kale ama se wax shubay haday doonaan labada midba way gelayaan marka maxay kugula tali talaahani ku siiyeen ma waxay guuraheen dibadda haddaad qaban karaysid haddaad qaban kari weydo qaarkood waxay guuraheen dawooyin hadii lagu diro muuji wallahi inay wax ka tari doonaan laakiin dibadda haddaad qabato waa laga yaabaa in qalab inta la saaro dee ay maxay tahay anagu qalab aan saarnaanaan hayn hadii xididkii aan kor ka garanayno ama se waxaan ku kala garanno dibadda waad qaban kartaa bay halkii kugu dhow meelaha arbaha ama bulshada islaamka u diraysaa fariin nooce bulshada islaamka waxaan u diray inay soo caawiyaan waxaan dhakhtar ku tago insha Allah waxay Sahra dhaqaatiirtu ku sheegeen oo kulleeyda u maleeyeen wax qalab aan ku eegnaa ma jiraan bay yiraahdeen bay tiri laakiin problemkan ama dhibaatadan waxa keenaya bay yiraahdeen xididadii bay istaagay oo dhiigga gaarsiinaynin adinka qaybihiisii oo dhan markaas saas awgeed buu adinku u bararaya waxa tiri ma soomi karo marka qaar qanjidhada ay xanuunaya dhamaan ku jira laabatooyinka wadnaha ay gariiraya dhibaato badan bay runtii hooyadan qabtaa inta soo caruur oo yar oo aan hooyo la'aan joogi karin oo haddana iyadii u shaqeynayso aabihii oo caadil ah oo aan wax shaqo haysan in loo badbaadiyo waxay la tahay hooyadeedu wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado naarna lagaga fogaado Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga badcas magaalada Burco.